السلام عليكم ورحمة الله. اسكو soo noqod wanaagsan mar kale bahda bandhig channel iyo muuqaal kale xiiso leh. Kor intaan guda gal mawduuca fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalka subscribe leh. Dadka inta badan waxay la kulmaan noloshooda xaalado iyo duruufo adag, laakiin farqi weyn ayaa u dhaxeeya qofka wajahaya duruufaha adag iyo kan quusanaya ee durbadiiba niyad jabaya. Insaanka guulaysanaya ma yaqaan quus, kan guuldaraysanayana wuu isdhiibaa xitaa haddii uu la kulmo caqabad iska fudud. Haddaba waxaan halkan kugu soo bandhigi doonaa shakhsiyaad diiday inay quustaan guul weyn gaaray. Jack Ma waa milkiilaha website-ka caanka ah ee Alibaba. Jack Ma wuxuu ahaa qof nasiib xun, wuxuu noolaa in badan oo noloshiisa kamid ah shaqo la'aan. Wuxuu in ka badan 16 jeer dalbaday hijrada ah inuu tago Mareykanka, laakiin waa laga diiday. Sidoo kale wuxuu isku dayay inuu ku biiro jaamacadaha Mareykanka, laakiin si lamid ah uma aysan suuragelin. Wuxuu ku soo aruuray inuu noqdo isbisiini ama kuwa nadiifiya dukaamada, laakiin sidaasay tahay ma uusan quusan. Waxaana maskaxdiisa ka gooxayay inuu sameeyo website-kan caanka ah ee Alibaba. Jack Ma wuxuu ka soo jeeday qoys faqiir ah. Wuxuu mar noqday dadka dalxiisayaasha mid caawiya, isagoo si free ah u caawin jiray dadka dalxiisayaasha ah. Kaliya wax uu ka faa'iiday jireen waxay ahayd inuu barto luqadda Ingiriiska. Sanadii 1999kii Jack Ma wuxuu ku qanciyay koox kamid ah ganacsatada China fikradiisa ah aasaasidda website-ka lagu magacaabo Alibaba. Website-kan oo lagu soo bandhigo qalabyo kala duwan, dadkana ay uga iibsadaan si elektaroonig ah. Wuxuuna siiyay magaca Alibaba, wuxuuna xarun uga dhigay gurigiisa yaraa. muddo kadib wuxuu helay maalgelin gaaraysa 5 milyan oo uu ka helay shirkadda Golden Sash. isla sanadkii xigay wuxuu helay maalgelin gaaraysa 20 milyan. haddaba shirkadda Alibaba hantideeda waxay gaartay 96 bilyan oo dollar. maanta Jack Ma waa ninka ugu taajirsan China. waxyaabahaas oo idil waxay ku suura galeen tawfiiqda eebe iyo quusasho la'aanta odaygan. Ingvar Kamprad asaasaha shirkadda IKEA iibiye taraq ku wareejiyay baaskiil oo ay ku adag tahay inuu xuruufta iyo lambarada kala aqoonsado, kaasoo noqday boqorka maamula shirkad aad u baaxad weyn oo ku faafsan daafaha dunida. wuxuu dhashay Ingvar sanadii 1926. wuxuu ka soo jeeday qoys haysta jinsiyadda Almaaniya ama Jarmalka oo deegaan ku ah koonfurta Sweden. shaqada wuxuu bilaabay isagoo jira da'da 6 sano. wuxuu baaskiil ku wareejin jiray waxyaabo yaryar sida taraqa iyo cuudka. sidoo shilin ugu darayay waxaa kordhay ganacsigiisa yaraa. da'da 17 sano markuu gaaray, aabihiis ayaa siiyay lacagta guud ee fiiga iskuulka. isagana ma uusan dayacin fursadaas ee wuxuu ku aasaasay shirkadiisa gaarka ah, wuxuuna ugu magac daray IKEA oo xarafka ugu horeeya uu ka soo gaabiyay magaciis. wuxuu ogaaday in aad loogu baahi qabo agabka guryaha lagu qalabeeyo. kadib waxaa batay xarumaha shirkadda ilaa ay guud ahaan qaaradda Yurub gaartay. odaygan wuxuu noqday ninka afraad ee ugu taajirsan caalamka sanadii 2007. Walt Disney shaqaale laga soo ceeriyay goobtii uu ka shaqeynayay oo dhistay shirkad aad u ballaaran. Walt Disney wuxuu ahaa bilowga noloshiis mid ka shaqeeya madbacad yar. waqti kooban kadib maamulaha madbacadda wuxuu go'aansaday inuu ka ceeriyo shaqada, isagoo ku eedeynaya inuu meel cidla ah ka booteynayo isla markaana uusan lahayn wax hal abuur cusub. sidaasay tahay Walt Disney ma uusan quusan, wuxuuna isku dayay inuu isbeddel sameeyo. ilaa fashilka wax baa laga bartaaye. wuxuuna sameeyay isku day dhowr ah kahor inta uusan ku soo caan bixin filimkiisii barafkii caddaa. shirkadiisa waxay noqotay midda ugu caansan caalamka guud ahaanba shirkadaha soo saara aflaamta kartoonka. si aad guul ku gaartid waa inaad samaysaa wixii aad awoodid, waana inaad joogtaysaa isku dayga adigoo ka fogaanaya wixii kolkii hore kaa khaldamay. shayga ugu muhiimsanna waa inaadan rajo dhigin. intaas ayaan kusoo koobaya mawduuceena maanta. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena. fadlan haddii uu muuqaalka ku cajabiyey like saar, comment ka bixi. waa inuu muuqaalka xiga insha Allah.